ku soo dhowaada casharadeenii taxanaha ahaa ee luuqadda Jarmalka. Waxaad ku baran doontaan casharkeennan toddobaad. Brief schreiben, qaabka loo qoro warqadda. Warqaddu waxay ka kooban tahay 3 qaybood oo muhiim ah oo kala ah. 1. Einleitung. 2. Hauptteil. 3. Schluss. Aynu isla egna hal mar sida ay warqaddu ay u eg tahay ama qaabka ay u samaysan tahay. Warqaddu san ayay u samaysan tahay. warqadda qaybta ugu sarreysa waxaa loo yaqaanaa briefkopf. briefkopf waxa ugu horreeya ee aan qorayna waa absendaha. absenduhu waa aniga ama qofka warqadda qoraya islamarkaasi. tusaale ahaan Asha Ali, Berliner Straße 2 13591 Berlin. sidoo kale waxaan qori karnaa contact datenkeen ama meesha nagala soo xiriiri kara, tusaale ahaan taleefon nambarkayga iyo gmailkayga. haddaba absendaha waxa xiga oo aad qoraysaa waa empfängaha ama helaha ama qofka aad warqadda u dirayso islamarkaasi. tusaale ahaan Ali Mohammed, Bismarckstraße 2 20259. sidoo kale waxaa muhiim ah in aad qorto meesha aad joogto iyo taariikhda ama goorta ama xilliga warqadda aad qoraysid. tusaale ahaan Berlin 1. Oktober 2022. waxaa marka ugu horeysa aad qoraysaa maalinta, kadibna bisha, kadibna sanadka. warqadeena sidan ayay u eg tahay. absenduhu waa Caasha Cali iyadaa warqadda qoraysa, empfänguhuna waa Cali iyo taariikhda ay qoraysay. haddaba maxaa xiga oo aynu qoraynaa intaa kadib? markaan intaa soo dhammayno waxa xiga oo intaa soo raacaya waa betreff. sababta aan warqadda u qorayno waa sida in aad ciwaan qorayso oo kale. tusaale ahaan wuxuu noqon karaa betreff ama ciwaanka warqadda aad ka dhigaysaa wuxuu noqon karaa Handyvertrag kundigen, ama wuxuu noqon karaa Mietvertrag kundigen, ama wuxuu noqon karaa Lebenslauf ama Einladung zum Geburtstag. haddaba aan u nimaadno aankhiidaha imikana. halkan waxaa muhiim ah oo ay tahay inaad kala ogaato in warqadda aad qorayso ay tahay mid ixtiraam ah, formel brief, oo aad isticmaalaysid c, mise warqad caadi ah oo informel ah oo aad isticmaalaysid do. formel brief waxaan isticmaalaynaa marka aan boolisayga ama dhakhtarka ama dowladda ama shirkad wax aan u qorayno ama qof uun aan rabno in aan ixtiraamno markaan wax u qorayno ayaan isticmaalaynaa. qofka aad warqadda u qoraysa haddii aad magaciisa garanayso gabarh tahay waxaad odhanaysaa sehr geehrte Frau. haddii uu nin yahayna waxaad leedahay sehr geehrte Herr. haddii aadan midna magaceeda garanaynin ama aadan magacooda waxaad leedahay sehr geehrte Damen und Herren. taas cagsigeeda markaan warqad informel brief ah aynu qorayno oo do ah oon asxaabteena oo kale u qorayno waxaynu ku bilaabaynaa haddii ay gabarh tahay Liebe. haddii ay gabarh tahay tusaale ahaan Liebe Sabine, mise Leila, mise Sabrina. haddii uu nin yahayna waxaan ku bilaabaynaa Lieber. tusaale ahaan Alex ama Abdi ama Frank ama Mohammed. imikana waxaan u imanaynaa 3 qaybood ee ugu waaweyn warqadda uguna adag. Einleitungku waa jumladda ugu horeysa ee aad warqadaada ku bilaabaysid. tusaale ahaan haddii ay u qorayo warqadda qof aanu saaxiib nahay ama asxaab aanu nahay ama qaraabo aanu nahay, kolba qofka aad u qorisid ayay ku xidhan tahay. waxaad ku bilaabaysaa fi get estia miya get es super. intaasi ayaa kaaga filan Einleitunga. wixii intaa ka dambeeyana hauptteilka ayaad gudagelaysaa. haddaba im Hauptsatz waa in tusaale ahaan dhibcaha ama punktiyada lagu siiyo aad wax ka qortaa haddii aad imtixaan A2 ama B1 aad ku jirtid. haddii aad qaar ka tagtid waxyaabaha aad ka hadlaysid waxaa laga yaabaa in dhibco aad ku weyso. halka dambe ayaan tusaale idinku siin doonaa siduu u qoran yahay. dhammaadka warqadda waa inaad hadalkaaga ku soo xidhaa jumlad aad ku soo gabagabaynayso. tusaale ahaan über eine Antwort würde ich mich freuen. jawaabtaada waan ku farxi doonaa.
aynu eegna haddaba cruise formel oo macnaheedu yahay maca salaamiin. iyaguna waxaa jira kuwo kale oo fara badan oo kala duwan. haddii aad warqad ixtiraam la qoraysid waxaad odhan kartaa mit freundlichen Grußen. haddii aad warqad informel brief ah na qoraysidna waxaad odhan kartaa oo du ahna viele Grüße ama herzliche Grüße. dhammaadkana unterschrift ahaan ama saxeexaaga waxaad u qoraysaa magac ahaan. ugu dambeyntii warqadeenna waxay u eg tahay sidan iyadoo uu ka maqan yahay hobtailku. warqadda kale ee ku xigtana waxay noqon doontaa iyadoo tusaale yar aynu ka soo qaadanay hobtailka. maaha qasab sidaan u qoray inaad u qortid adiguna. waxaad u qori kartaa sidii aad adigu jeclaatid ama sidii aad adiga rabtid inaad u qortid markaasi. danke, mahadsanid. waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka wada fahanteen casharkan. wixii su-aal ah waxaad noogu reebi kartaa barta commentiga. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe garee si aad ula socotid casharo kale oo fara badan.